markii uu nebi aadam calayhi salaam geeriyooday waxaa mas'uuliyadda in dadka diinta la baro qaaday wiilkiisa Shiith. waxaa sidoo kale markaas la sheegaa in ilmaha nebi aadam ay dunida ku balaarteen. muddo kadib Allah wuxuu dadka ugu naxariistay in uu u soo diray nebi Idriis calayhi salaam. nebi Idriis waa jiilka shanaad ee ilmaha nebi aadam. wuxuu ka soo faracmay ilmaha Shiith. Shiithna sidaan hor u sheegnay waxaa dhalay nebi aadam. nebi Idriis waxaa la sheegaa in uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee soo alifa sida wax loo qora. Idriis calayhi salaam wuxuu ku dhashay oona ku weynaaday magaalada Babylon oo hadda ah Ciraaq. Babylon waxaa lagu tilmaamaa inay ahayd magaalada iyo caasimadda ugu horreysay oo ay ka bilaabatay ilbaxnimada ibni aadamka. waxay u dhaxaysaa labada webi ee taariikhda caanka ku ah ee la dhaho Tigris iyo Euphrates. nebi Idriis calayhi salaam wuxuu bartay uuna raacayay diinta aboowihiisa nebi aadam, wuxuuna dadka ugu wacayay in ay diinta aabahooda ilaabin oo ay ku dhaqmaan. wuxuu dadka ugu wacayay in ay Allah adeecaan iyo inay dadka u cadaalad falaan oo ayna daacad ahaadaan. wuxuu dadka barayay cibaadooyinka oo ay Allah ugu dhawaadaan sida salaada iyo soonka iyo inay maalkooda sadaqa ka bixiyaan oo ay siiyaan kuwa masaakiinta ah. Allah wuxuu Idriis calayhi salaam ku amaanay in uu ahaa nebi iyo qof run sheegid badan. nebi Idriis wuxuu lahaa malag oo ay saaxiibo ahaayeen oo u imaan jiray. malaga ayaa maalin wuxuu Idriis u sheegay in Allah uu ku sharfay in Idriis calayhi salaam maalin walba samada loo qaado oona loo qoro camalada wanaagsan oo dadka wanaagsan ay sameeyaan. muddo markii nebi Idriis oo samada loo qaadi jiray oona dhulka loo soo celinayay, maalin ayaa Idriis wuxuu jeclaaday in uu camal badan oo wanaagsan shaqaysto inta aysan gaarin geeridiisa. wuxuu malagii ay saaxiibada ahaayeen u sheegay in uu rabo in uu la kulmo malkul mawdka si oo u ogaado inta ugu harsan waqtiga geeridiisa. midaas waxay cadeynaysaa in nebi Idriis calayhi salaam uu waxba ka ogeyn cilmul ghaybka, sida quraanka Allah inoogu sheegay qof og ma lahan cilmul ghaybka ilaa aan ka ahayn Allah subhanahu wa ta'ala. malaga iyo Idriis ayaa samada isku raaceen. iyaga oo samada afraad sii maraya ayaa waxay isku arkeen malkul mawdka oo markaas loo soo diray in uu Idriis nafta ka soo qaado. malaga Idriis dhabarka ku waday ayaa salaamay malkul mawdka, wuxuuna u sheegay in uu Idriis rabo in uu ogaado waqtigiisa inta ugu harsan. malakul mawdka ayaa weydiiyay meesha uu joogo nebi Idriis calayhi salaam. malaga wuxuu dhahay dhabarkayga ayuu saaran yahay. malakul mawdka ayaa yaabay, wuxuu dhahay subxaanallah. wuxuu u sheegay in waqtiga geerida nebi Idriis calayhi salaam ay ka harsan tahay daqiiqado keliya iyo in Allah uu ku amray in uu nebi Idriis calayhi salaam uu nafta kaga qaado samada afraad. nebi Idriis calayhi salaam samada afraad ayaa nafta looga qaaday habeenkii nebiga la dheelmiyay ee Israa wal Mi'raajka. nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu samada afraad kula kulmay nebi Idriis calayhi salaam. intaas ayay noogu eg tahay qisada nebi Idriis calayhi salaam.